ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله سامبوسكيني markii aan diyaariyay sidaas ayuu soo baxay quruxda badan leh inaba caadi ma aha asxaabtayda quruxda badan leh meel kasta joogtaanba qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada haddana waxaan inoo bilaabayaa sambuskeeni iyo saan u diyaariyo ma sha Allah halkan daqiiq ayaa iigu jirta daqiiqda iigu jirta waxaan ku daray 2 malqacdood oo saliid waa saliid cad ama saliida normalka ee dhalka lagu karsado waa malqacad iyo bar sonkor ah اللهم صل على محمد sidoo kale waxaan ku darsanayaa wax yar oo badnayn oo milix ah wadaragtaan ما شاء الله asxaabta quruxda badan leh waxaan idin leeyahay qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada saliida waxaan ugu daray kaama noqonayo adkaanayo wuxuu noqonayaa wax yar oo biskuda oo burburaya oo iliga markaad saa u saartid aan soo jeedin ay jag u go'o sonkortana waxaan ugu daray jilaacay ka dhigtaa dhadhanna ma ka dhadhamayso oo dhadhan ma laha daqiiqda iyo kala badan yihiin sonkortu sababtaas ayaan ugu daray daqiiq sida loo xasho qof waliba uu yaqaana cidina maanta sharaxi mayso laakiin qof waliba qaab ayuu u samaystaa waxa laga yaabaa anigu saliidaan ku darsanay adigu inaanad ku darin bal ila soo tijaabi oo ila soo arag walaashayda quruxda badan leh inta ka bacdi waad aragtaan daqiiqdeeni gacanta ayaan la geli doonaa insha Allah waanan soo diyaarin doonaa markaan soo diyaariyana way isku soo noqon doonaa daqiiqdeeni waan soo diyaariyay waana soo xashay waad aragtaan sida quruxda badan leh saliid yar ayaan korka ka mariyay si aanay iiga qabsanin weelka ka bacdina waan daboolayaa halkaas ayaan iska dhigi doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan idin leeyahay meel kasta joogtaanba subscribe like and comment asxaabta cusub ee soo biirtay soo dhawaada channelku waa channelkiini hays martiyeynina minankiina waaye soo dhawaada aad ayaa ugu mahadsantiin ducadiina iyo garab istaagiina goor kasta iyo goob kastaba welcome hadda waxaan inoo sameyn doonaa daqiiqdeeni ayaan jarjari doonaa waanan la wixi doonaa insha Allah waana isla arki doonaa sida ay soo baxdo iyo sida aan u isticmaalo ما شاء الله تبارك الله وان jarjari doonaa couscous بعد الكوسكوس كان ان شاء الله وان isla wadaagi doonaa sidii ay soo baxdo mindida ayaan dhexda kaga kala jarayaa qof walba isaga gacanta ku kala jaran kartaa laakiin anigu sidaas ayaan u jaran doonaa insha Allah waana dila arki doontaan labada inood bay noqotay aad ayay u jilicsantay heer sare u tahay anu waxaan jecelahay daqiiqda aan samaysanayaa inay sinaato oo isleekaato ما شاء الله تبارك الله markii aan jarjaro waxaan jeclahay daqiiqda in ay sinaato gacanta isugu duubo waana arki doontaan qurux ayay soo baxaysaa si siman ayay kugu la waxmaysaa waa tana intan ayaan ka soo dhigay waa 8 xabo sambus qurux badan ayaa halka kaaga soo baxaya kullee aniga qof waliba dooqiisa anigu sambuska waa weyn aan aadna u waaweynin aadna u yaryareen ayaan jeclahay daweydinkaasa waan soo kala bixinayaa sidaa markaan u kala bixiyo saliid ayaan marin doonaa insha Allah oo ila arki doontaan warle ma la wadaa buu ninkii jiray weydinkaasaan dankoodi saxaabtayda quruxda badan leh taa dhacalkaas ayaan u leexiyay tii kalena waa tanaa wax yar ayuu ka wen yahay go'a sambus go'a sabayada daqiiqda ama kuusku kamarada iga dhaqdhaqaaqaysa karaa leeyahaada aniga ma jecli gloves inaan xidho dad badan ayaa soo weydiiya maxaad gloves u xidhan weyday in gloves ma jecli inaan xidho waayo ma la qabsanin mana baranin laakiin waxaan sameeyaa gamcahayga ayaan si fiican u soo nadiifiyaa halkan saliid ayaan ku haystaa saliidan ayaan ku shubi doonaa oo dhex marin doonaa dhammaantood waana ila arki doontaan sida ay soo baxdo
waan isku dul saarayaa insha Allah. markaan isku dul saaray ka bacdina lawaxaad ayaan u qaadayaa. marka aan lawaxo wad ila arki doontaan markii aan soo lawaxay sidaas ayay soo baxday. sidaas ayay soo baxday. sidaas markay soo baxdayna waan kala jari doonaa insha Allah. 4 xabo oo isla eg bartanka ayaan ka kala jeexi doonaa. 4 xabo oo isla eg ayaan ka dhigi doonaa. dawaad ila aragtaan ma sha Allah tabarakallah. hays martiyeen walaashay ama walaalkay channelkiina weeye. subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-ga xaqiina ayaa laga sugayaa. anigana wixii hawl iyo shaqo ayaan idin la diyaarahay. soo dhawaada baan idin leeyahay. saxaabta cusub ee ku soo biirtay qalbi furan iyo gacmo furan channelkiina weeye. dabka ayaan inoo shiday. maqligiina waan inoo saaray. sidaad aragtaanba waxaan saari doonaa daqiiqda ayaan saari doonaa haddii Allah idmo. waana soo tirtirin doonaa sambuuska. marka soo tirtiriyana way isla arki doonaa sida quruxda badan loo soo baxo. muhiimadu waa inaanu ka gubanin dab qabowga aanad ku samaynin. waa dab qabow haddaad ku samaysid wuu ka qallafayaa. dab dheer haddaad ku samaysidna wuu ka kululaanayaa. labadaas noocba marka waxaan idin leeyahay sidaas dab gaaban oo dhexe ayuu ku qurux badan yahay. dheerayna hoosaynina ma sha Allah. dawaydinkaas saxaabta reer Marwo waxaan idin leeyahay isla socod wanaagsan, isu faa'iideysi iyo kala faa'iideysi labadaba. qofkii habla badan baa jira oo i weydiiyay sidee loo sameeyaa daqiiqda ama tayga sambuuska ayaa jira. waa taas sida loo sameeyo kulaan saasaan u samaystaa. idinkana waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan oo u soo samaysan doontaan. hadal idinku badin maayo. sidoo kale duqadii iyo saynis ugu darsadana waa ila arki doontaan. ma rabin inuu fiidiyowga idinku dheeraado. duqadii ayaa diyaar ah. duqada waan soo qalajiyay waana soo diyaariyay. markaan soo qalajiyay soo diyaariyay xawaashkeedii waxeediba way leedahay. halkan basasha oo soo jarjaray waa iigu jirta. wad aragtaan si yar ayaan soo jarjaray ama gacanta ku jarjaray ama mashiin ku jarjaray. wad ila aragtaan aad iyo aad ay u qurux badan tahay. waan isdhex gelinayaa. waqtiga aan sameeynayaa waa habeen. waxa laga yaabaa inuu dhulku idinku madoobaado fiidiyowga oo idin si fiican u arkin. larku daciif yahay. waan isdhex gelinayaa basashii iyo hilibkii. markaan isdhex geliyo si fiican isugu qaso na waxaan la aadayaa xagga iyo wixii kale aan ku daraayay ama aan ku soo qasaayay. tootalis wax basbaas ma laha iyo wax kulul. xawaashaadkiisuna hilibka ayuu u dhan yahay. hadday tahay geedaadar, hadday tahay maraq digaag, hadday tahay ay nooc xawaash ah, toon, wax kasta waxay ku jiraan. hilibka ayaan ku soo qalajiyay. basashana korka ayuu makaga darayaa hilibkii oo qaboobay waliba oo aan kululayn si aanay basashu iiga jilcin. qof waliba dooqiisa anigu basasha aan jilcin ayaan jeclahay aan shiilmin. haddaad adigu jeceshay inaad shiilato waad shiilan kartaa laakiin anigu ma jecli. waa kaasaa hilibkii sida quruxda badan la ayuu soo dhexgeliyay. dhinaca kale waxaa iigu jira iyadana oo aan ku haystaa waa barbarooni aan isagana si yaryar soo shiiday oo soo jarjaray.
ما شاء الله udgoon ayuu sameynaya isaguna qurux badan ma shiila waa qaydi aad ayuu udgoon yahay sambuusku ma sha Allah wuxuu ku noqonayaa wax la yaabay baan ku la yaabay ka waxaan ka rajeynayaa asxaabtayda cusub ee ugu soo biirtay iyo asxaabtayda hore ee la joogtayba inaan korso soo qaadaan channelka like-ta commentiga share-ta asxaabtiina la share garaysan hadaa ka heshaan videoga like-tuna hawlidinku ma joogto walaalayaal like-ta noo badiya waliba like-ta igu roonaada si videogu meel sare u gaadho oo cid waliba u aragto qofkii u baahan uu uga faa'iideysto inta ka bacdi waxaan samayn doonaa oo halkan yaala daqiiqdii ayaan laabi doonaa sida aan u laabo isla arki doonaa qof waliba kulli si uu u laabtaa halkan dhinacayga daqiiqan qasay ayaa ii taala oo qasan wad aragtaan sidaas ayaan isugu soo laabay ma sha Allah daqiiqda waxaan u qasay biyo iyo daqiiq kaliya ayaan isku qasay qof waliba waxaan u maleynayaa gabadh kasta Soomaaliyeed inay taqaano sidaas ayaan ugu dari doonaa insha Allah ugu guri doonaa taas hilibkiina wad aragtaan sidaas ayaan u laabayaa ka bacdina daqiiqda ayaan afka ka marin doonaa sambuus qurux badan oo aan meel la ka furayno hadhow markaad shiilaysa saliidda kaa gelin kaa cabin ayuu ku soo baxayaa waad aragtaan ma sha Allah xabadii labaadna waa kana waxoogaa waan idinla sii wadi doonaa maadaama dhowr qof i weydiiyeen daqiiqdaas sida loo sameeyo waayo daqiiqa jira dukaanka laga soo iibsado inkastaan anigu wali soo iibsanin oo aan isticmaalin anigu taa guriga ku samaysto ayaan isticmaalaa hadday noqoto daqiiqda sambuuska in anigu samaysto daqiiqdeena caadiga ka laabto markaas walaalahaygii soo weydiiyey waa taasaa anigaa ka soo tuuray anigaa soo geliyey insha Allah videogana markuu idin soo gaaro waxaa la idinka rabaa like fara badan oo buuxda meel kasta joogtaanba waxaan idin leeyahay soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan sambuuskeeni markii aan soo dhameeyay noocan ayaa soo baxay ma sha Allah tabaarakallah ma shiili doono hadda berita subaxa hore ayaan shiilayaa haddii aan nafta ii daayo salaada hore markaan shiilayana insha Allah waan idin la soo wadaagi doonaa saaka waagi ayaa bariyay waxaana shiilayaa sambuuskeeni waa kana digsi ayaa saliidii saaran tahay aad ayaan u soo diirtay waxaan rajaynayaa inaad aad iyo aad uga bogan doontaan videogan ugana heli doontaan waan ku riday saliidii waad aragtaan saliiddu waa inay kululaataa ay aad u kulushahay waayo haddaanay kululayn sambuusku saliidda ayuu kaa cabayaa mana fiicna sidaasi markaa saxaabtayda quruxda badan leh ay la socota meel kastaa joogtaanba waxaan idin leeyahay maalintu ha idin wacnaato waqti kastaa joogtaan oo wanaagsan ayaan idinku salaamayaa waad aragtaan sambuuskii insha Allah markaan xagga kale u rogana way la arki doontaan iyo markaan ka soo guraba waxaan idin leeyahay ha moogaanina oo ha ka maqnaanina Marwa Beauty and Cooking janankiini weeye minankuna minankiini weeye waydinkaasa saxaabtayda quruxda badan leh ما شاء الله تبارك الله ودركتن سامبوسكني سيده قروحده بدن له oo soo shiilmay inaba caadi maaha والله يا بيبان idin koolo dee moogaanina waxa ka maqnaanina Marwa Beauty
aan cooking minankiina waay sambuuski waa ka soo tuuray maasha allah tabaaraka allah quruxdiisana waa aragtaan waan idin cajabin doonaa haddaad samaysataan idinka iyo awlaadiina iyo asxaabtiinaba anigu waan ku haysanaa maasha allah waqti kastana waa samaysanaa gurigeygana sambuus lagama waayo maadaama oo waxaad gurigaaga ku samaysanaysa uu yahay innaba caadi maaha waxaan idin rajaynayaa asxaabtayda quruxda badan leh qalbi furan gacmo furan maasha allah tabaaraka allah soo wada dhawaada waxaan idin leeyahay intaan fiidiyowga xiga ku kulmayno sambuuskii aan ka guray wakaasa aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada subscribe iyo like iyo commentiga waa xaqiina فيديو حقنتين كل منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمانة لله سبسكرايب لايك and comment